Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada aqoonkeena academy waxaynu ku jirnay barnaamijkeeni ahaa ama koorskeeni ahaa Microsoft Word 2019 processor oo basicii casharka basic aynu qaadanaynay casharkan waxaynu ku qaadanaynaa ama muuqaalkan waxaynu ku qaadanaynaa sida loo soo geliyo qoraalka documentiga si qoraalka loo soo geliyo iyo sida loo midabeeyo qoraalkaas aynu soo gelinay sida loo midabeeyo iyo waxaynu ku qaadanaynaa qaabka loo qaabeeyo ama qaabka looga bedelo loo qurxiyo loo hagaajiyo aynu marka casharka u galno markaynu saan documentiga uu soo kacsan yahay waxaynu sameynaynaa marka waxaa la soo gelin karaa qaabab badan ayaa loo soo gelin karaa inaad tiraahdo insert aad tiraahdid ka bacdeena text box markaad text box tiraahdo waxa kusoo baxaya templatekan ama noocyatan kala duwan ayaa kusoo baxaya ka rabta ayaa ka dooranaysaa amaba waxaa ka dhiganaysaa symbol ka bacdeena qaabkan ayaa ugu qoraysaa qaabka rabto marka qaabka kalena waxa weeye haddaadan qaabkan rabinna waxa weeye calaamada tan hore kusoo qaadanay oo ah insert bountiga meesha ay joogto haddaba bigbigleeda markay bigbigdhahayso waxa weeye qoraal bay diyaar u tahay marka haddaynu qoraal qorno wuu qormayaa aragtaa wuu qormayaa marka waxaynu sameynaynaa qoraalka waxaan ku qoranaynaa tijaabo Microsoft Word typing tusaale ahaan baynu kusoo qaadanaynaa Microsoft Word typing qoraalka waa kana waa ii qoran yahay marka waxaan rabaa inaan hagaajiyo qoraalkan farta ka bedelo kalarka ka bedelo midabka ka bedelo noocu yahay ka bedelo marka saan u sameynaya waxa weeye qaybtan homeka kusoo sharaxay menu tabka la dhaho homeka ayuu noo joogtaa homeka waxaynu ka arkaynaa qaybtan ah fontigan iyo paragraphkan iyo stylekan qaybtan dhan homeka dhan wuxuu la shaqeeyaa qoraal wixii qoraal ah ayuu homeka la shaqeynayaa oo ah inaad qoraalkii wax ka bedeshid inaad kalar ka bedeshid inaad qaabkiisa ka bedeshid inaad siduu u qoran yahay ka bedeshid ayuu la shaqeynayaa qaybta homeka la dhaho tab menuga homeka la dhaho marka waxaan rabaa si aynu wax uga bedelno ama kalarka uga bedelno ama aynu uga bedelno sizeka uu yahay waxaa sameynaysaa marka hore waa inaad highlight saadhaa highlightka u saaraysaa dhinacan ama dhinaca kan horey ama gadaal ka rabto ayaad geynaysaa mouseka ku dhufanaysaa click siinaysaa kabacdeena right click adoo haya mouseka ayaad jiidaysaa oo dhanka kale ayaa u jiidaysaa haddii dhinacan marka aad click siisay dhanka kale ayaa u jiidaysaa waxaa kaloo lagu sameyn karaa hadduu qoraalku intaa keliya yahay waxaad dhahaysaa control a shortcut control a intaa keliya ayaa highlight ku saarsanaanaysaa laakiin hadduu qoraalku qoraal badan yahay oo documentigaaga ay qoraal badan ku qoran yihiin looma isticmaalo control a haddaadan dhammaantood wax ka bedelin control a markaad taabato wixii pageka kugu qornaa keliya ma ahane documentigaaga o dhan waxay ku qornaa hadduu 10 page ahaa iyo hadduu 100 page ahaaba documentigaaga o dhan ayuu highlight saarayaa intuu page uu yahay waxa ku qoran dhan ayuu highlight saaraya marka control a tiraahdo laakiin haddii saan oo kale wax kale uusan ku qornayn hal page yahay control a waa dhihi kartaa amaba saara u dooran kartaa marka si aynu wax uga bedelo laba qaab ayay noqonaysaa in markaynu control a taabanay qaybtan waxay nagu soo baxay daaqadan yarta ayaa nagu soo baxday oo pop up ka ah ayaa noo soo baxay waynu ka bedeli karnaa oo waxay la shaqeynaysaa labada tan daaqadood group ayay la shaqeynaysaa groupkan la dhaho font iyo groupkan la dhaho paragraph ayaa hal meel la iskugu soo koobay ama waxaa dhihi kadhaa right click ayaa dhahaynaa qaybtan oo u isticmaali karnaa qaybtan oo isticmaal saa baa kusoo bixi karnaa waa kusoo bixi karnaa waa isku mid marka inagu waxaan isticmaalnaa qaybtan farta uga bedeshid qaybtan waxaa ku qoran calibri body baa ku qoran qaybtan waa fartaas noocaas ayaa inoo dooran weeye haddii aynu falaartan yarta aynu ku dhufano waxay noo soo baxaya fara badan ayaa noo soo baxaya noocya kala duwana tan times new roman baa la dhahaa tan arial baa la dhahaa tan archive of black baa la dhahaa kulli way badan yihiin habad nooc waxaa ka arkaysaa qoraalkaaga ka arkaysaa midda aad toorato amaba intaad adoo aan falaartan soo bixin baad meesha ku dhufanaysaa kabacdina waxaa wadaysaa falaarta keyboard ku qoran hoos downka ama upka labada midka ka rabto ayaa taabanaysaa waxaa kusoo baxaya farihi dhan baa kusoo baxaya iyadaa ka soconaysaa marka adoo falaarta keyboard ku qoran mouseka ah ayraahda keyboard ku qoran downka ama hoos taabanaya marka aynu taa u dayno agency fb baan u daynaynaa waa yar dhahay maynu aragno cabirkeeda waa 11 waxaan rabaa cabirkaa inaan ka weyneeyo ama yareeyo laba qaab ayaa cabirka u yareyn kartaa ama u weyneyn kartaa labada qaab waxay kala yihiin inaad
meeshaan tirada ku qoran tahay saddex qaab ay raahdee meeshaan tirada ku qoran tahay baa ku dhufanaysaa tiradii adag toos u gelinaya manual keyboardka ka gelinaysaa 16 haddaan dhaho way gashamay kuwa ku qormay kabacdi haddaan click dhaho wuu weynaaday saa ujeedid farti waa weynaatay aan marka dhaho redo undo ay raahdee qaab kale ku gelin kartid waxa weeye inaad falaartan dhibicda yarta ah hoosteeda aad fudho kabacdina aad ka doorato qaabka aad rabto size ama cabirka aad rabto aad ka doorato 26 qaabka kalena waxa weeye inaad undo dhaho inaad eedan weyn waxay la mid tahay adoo cabirkii weynaynaya eedan yarna waxay la mid tahay cabirka markaa yareynaysa marka haddaan eeg weyn aan ku dhufto oo weynaynaya saa ujeedid haddaan ku celceliyana xaggan uu iga tusayaa cabirka aan ka joogo markaan ku dhufto wuu ii weynaaday qoraalka waa ii soo weynaaday haddii aan rabo inaan yarayara cabirka 36 ayuu ii maraya haddaan rabo inaan yarayara eeda yarta ayaan ku dhufanayaa wuu yaraanayaa cabirkana intaan ka arkaya marka inoo weyneeyey waxay inooga dhigtaa 36 inooga dhigsa inuu aragno practicalka aynu ku qaadanayno marka hore tijaabada aynu ku qaadanayno casharka waa inuu saa inoogu dooran tahay marka waxay rabnaa inaan farta color ka bedelno haddana waxaynu kasoo bedelay cabirkii waxaynu ka bedelay qoraalkii fartii noocay tahay ayaynu soo bedelanay waxaan rabnaa markaa midabka inaan ka bedelno colorka midabka soo uga bedelayno waxa weeye halkan eedan ay ku qoran tahay colorkan hoos yaallo colorka aad doorato hadda automatically waxay noogu dooran guduud baa inoo dooran colorka aynu halkaa kasoo dooranno colorka aynu kasoo dooranno halkan baa halkaa kasoo baxaya mar walbaba guduud hadda guduud baa si toos ah inoogu dooran guduudkaas markasta inoo soo baxaya waxaa lagu talagalay si meelaha boobsiis ah lagu talagalay qofka markuu degdegayo kale inuu ku dhufto haddaan hadda ku dhufto guduud ayay noqonaysaa fartaas saa ujeedid fartii guduud ayay inoo noqotay marka highlight noo saar see marka colorka guduudka u bedeli karaa waxaan furayaa dhibicda tan yarta ah waan furayaa waxay noo soo baxaya kalarada tan badan ayaa noo soo baxaya kii aynu taabanaba farta way isbedelaysaa saa ujeedid haddaynu nooca taabano haddaynu cagaar taabano haddaynu jaalo taabano guduudka haddaynu taabano haddaynu madow taabano noocaa rabno ayaa inoo soo baxaya waxaa kaloo raba marka faraha midabada tan kasoo qaad kuma qanacsani midabada tan meesha ku jira kuma qanacsani waxay noqonaysaa marka inaan tago meeshaan hoose ay ku qoran tahay more colors markaan ku dhufto kalaro badan ayaa soo baxaya oo adaa kala dooran kara godadkan yararka ah god kasta markaan ku dhufto kalar nooca ayaa inta iga soo muuqanaya kan waa kii hore oo currentiga waa kii hadda uu ku yahay fartan midabka hadda ku tahay kana waa newga weeye oo midabka hadda dooranayso aad rabto inaad ka dhigto weeye oo standard ah haddii kalena custom ayaan dhahayaa noocaan rabo marka anaa samaynaya sidee u samayn karaa waxaan leeyahay colorka isagoo ii jooga cagaarka noocaana amaba waxay iga dhigtaa buluuga noocaana isagoo ii joogaaba waxaan rabaa inaan buluug khafiifa ka dhigo qaybtan falaartan yarta madow ayaan taabanaya kor baan u wadayaa saa ujeedid buluug khafiifa weeye waa isbedelayaan RGB-gan wuu isbedelayaa saa ujeedid haddii aan kor usii wado buluug khafiif u noqonaya madow grey dameeri ayuu sii noqday laakiin haddaan hoos usoo wado buluug tikha ayuu noqonayaa oo madow ayaa badanaa kusoo badanaya haddaan hoos wadana madow ayuu isku bedelayaaba colorkii dhamaaba madow ayuu isku bedelaya RGB-gas wuxuu noqonayaa 000 ayuu noqonayaa marka qaybkan colorka adaa kala soo baxaya qaybtan ay kala soo baxaysaa haddii aad hex code-ka u haysidna halkan ayaa gelaysaa marka hex code-ka waxa weeye color kasta number ayuu leeyahay haddaan colorkan taabto number aan wax ku daro number ayuu leeyahay RGB-ga number ayuu ii leeyahay colorkaas marka qaabkaas ayaa looga bedelayaa haddaan rabo noocan ay ka dhiganaya marka cagaarkaas aan kasoo dhigay tusaale ahaan cagaar fartiisa ujeedid cagaar ayay noqotay marka haddaan rabo marka fartan inaan ka dhigo far chief ah ama line hoos mariyo amaba aan hoos mariyo ama bold aan ka dhigo far burburan aan ka dhigo waan dooranayaa kabacdeena markaas aan u doorto qaybtan fontiga imanaya B xarafka B meesha ku qoran tahay ayaan taabanayaa fartii burbur ayay noqotay undo haddaan dhaho qaab kale ayaa uga dhigi karaa burbur control B ayaan taabanayaa shortcut control B haddaan taabto oo aragtaa waxay noo dooran xarafka B ayaa noo dooran oo fartii burbur ayay noqotay waxaan rabaa iyadoo sideeda u burburan ayaa waxaan rabaa xarafkan word clear ku qoran tahay xarafka word clear ah baan rabaa inaan chief ka dhigo waxaan dhahayaa ayda ayaa taabanaya chief ayuu noqonayaa haddii undo dhahana control I way shortcut-ka chief ayuu noqonayaa waa aragtaa chief ayay noqotay fartii waa chiefsatay word waa chiefsatay waxaan rabaa haddana qaybta timing-ka ah baan rabaa inaan diilin hoos mariyo qaybtan U ayaa taabanayaa diilin ayaa hoos maraysa haddaan undo dhahana control U way shortcut-ka
marka waxaynu soo aragnay inaynu ka dhigno bold ka dhigno, inaynu italic ka dhigno, iyo inaynu underline ka dhigno. Marka underline-kan noocyo badan ayaa jira. Line-kan isagoo ii ahba waxaan rabaa inaan line kale dhexda mariyo tusaale ahaan. Marka saan intaan u doorto waxaan soo furayaa meeshaan u-da daaqadeeda xuurta ayaan furayaa. Inta line haddii laba line u rabo, haddaan line dhexe u rabo, haddaan dhibco u rabo, saa oo jeedid intaba waa ka dooran karaa dhibcahaba. Kulli colorka haddaan rabo inaan line ka bedelo, color guduudan u bixinayaa. Haddii marka aan rabo marka inaan line dhex mariyana, ii door amaba Microsoft-gaan aan tagayaa. Microsoft-gaan baan rabaa in line dhex mariyo. Waxaan tagayaa qaybta tan ABC, line-ku dhex marsan yahay straight-ka. Line baa dhex maraysa u jeedid. Line-kaas ayaa dhex maray cagaarka ah. Marka haddaan rabo marka inaan tijaabo meesha ay ku qoran tahay background-keeda dambe colorka aan ka bedelo, waxaan sameynayaa qaybta tan AB ay ku qoran tahay colorka jaalaha hoos yaallo. Colorka jaalaha waa saan tan kale usoo sheegay weeye. Hadda waa aragtaa cagaar ayay noo noqday, jaalle ayaa automatically ah. Markaan doorto saa u jeedid tijaabo waxay noo noqotay background-keeda cagaar, jaalle ay yiraahdeen huruud ay noo noqotay. Microsoft diilin ayaynu dhex marinay, Word italic ayaynu ka dhignay, typing diilin ayaynu hoos ka dhignay. Marka haddii aad u baahan tahay qalabkan amaba toolskan saasaa uga bedeli kartaa. Marka haddaad rabto inaad ka celiso aad sidaad hore kusoo celisid, boldiga waa ka saarnay ma doorna. Waxaan rabaa inaan qaybtan ka saaro colorka. Waxaan tegayaa daaqadan yartaan soo furayaa, hoos baan dhimanaya no color. Color-radan waa color-radii badnaa, noocaan raba ayaan ka dooranaya. No color baan dhahayaa haddaan rabo inaan color ka saaro. Tan waxaan dhahayaa waa dooranayaa, waxaan leeyahay midabka iga saar, diilinta iga saar. Batoonku waa ii dooran yahay, waa taabanayaa, mar labaad buu ka baxayaa. Waxaan rabaa Word inaan sideedii kusoo celiyo, italic ka saaro. Ayada ayaan taabanayaa, marka inuu ii joogo waxaan ku garanayaa calaamad ayaa fuulaysa oo nooc kale color ayuu yeelanayaa dameeriya. Waan taabanayaa, wuu ka baxayaa. Haddaan rabo typing-ka inaan underline ka saaro, isagana sidoo kale waa ka saarayaa. Fartii sideedii hore ayay igu soo noqotay. Marka badanaa waxaa loo adeegsadaa ciwaanada ama meelaha highlight-ka ama saarayso ama qofka aad u calaamadinayso ayaa badanaa loo adeegsadaa colorka haddaa ka bedelayso. Ciwaanka kasoo qaad tan ciwaan baan ka dhigayaa, hoos igu deji, enter baan idhi. Saan rabo marka haddaan rabo line cusub inaan sameeyo, new line haddaan rabo inaan sameeyo, hoos baan enter baan taabanayaa, hoos ayay igu digaysaa, line cusub ayaa ii bilaabanaya. Line cusub baan waxaan ku qorayaa marka line cusub Soomaali ahaan, line cusub baan ku qoray. Kan ciwaan baan u rabaa marka. Ciwaankan cagaar ayuu yahay, waxaan ka dhiganayaa burbur boldi. Waan buurinayaa, burbur baan ka dhigay. Line ba ayaan hoos ka marinayaa marka. Underline baan dhahayaa ama control U. Sababta uu kuwaan waxaan aan ka bedelay ama aan boldiga ka dhigay, burbur ka dhigay ama aan diilinta hoosta mariyay, sababta kan ugu qormi weysay ama ugu bedelmi weysay waxa weeye anaa u calaamadiyey Microsoft Word-ka, software-ka ama barnaamijka baan u calaamadiyey. Waxaan idhi intaa aan calaamadsaday oo sare baa waxa halkan ka bedelo ku dabaqaysaa, iga dhigaysaa. Waxaan calaamadsaday intaas sare, waxaan ku idhi bold iga dhig, wuu iga dhigay. Waxaan ku idhi waxaad iga dhigtaa underline iyo hoos mari, wuu iga dhigay. Waxaan ku idhi colorka iga bedelo cagaar iga dhig, wuu iga dhigay. Tanna kama soo dhigay sababta tan uma aanan dirin. Laakiin haddaan dhammaantood saan u wada doorto waxaan rabo wuu ka dhigi karaa marka. Aan dhaho bold iga wada dhig, waa iga wada dhigay. Colorka iga wada bedel, blue ka dhig, waa iga wada bedelay. Ma garatay? Marka waa inaad u sheegtaa, waa doorataa inta aad rabto inaad farta ka bedesho ama aad wax ka bedesho ama qaab ka bedesho ama aad color ka bedesho. Marka saan u dooratid highlight-ka saa u saarto macnaheedu waxay la mid tahay selection, waan doortay. Inta aan doortay waxa aan kuu sheego iga bedel. Waxa aan taabto iga bedel. Haddaan colorka blue taabto, blue iga dhig. Haddaan bold taabto, bold iga dhig. Haddaan italic taabto, ayada italic iga dhig, chief iga dhig. Haddaan ka farta ka bedel dhaho, farta iga bedel. Hadda Arial-ka inoogu soo celi, Arial-ku iga bedelay. Farta iga bedelay. Laba far isku nooc maaha. Midna waa Arial, midna waa nooc kale. Haddaan dhaho boldiga iga saar, wuu iga saaraya, tan kaliya iga saaraya. Haddaan dhaho colorka iga bedel, madow iga dhig, wuu iga dhigaya. Haddaan dhaho farta ii yaray, afwan ay dhaha farta ii yaray, wuu ii yaraynayaa. Sababta intaas ayaan doortay waa micnaha ay leedahay highlight-ku, micnaha ay leedahay weeye, amaba inaad highlight garayso ama aad calaamadiso. Intaa rabto ayaa calaamadinaysaa. Markaad calaamadiso awood ba u yeelanaysaa marka inaad ka bedesho.
haddii aad dhammaantooda calaamadisidna dhammaantood ayaa wax ka bedeleysaa. hadda keliya waxaan calaamadeyn karaa hal xaraf keliya ayaan wax ka bedeli karaa. xarafka Microsoft markaan dhaho Z baa waxaan leeyahay boldiga ka saar, colorkana iga bedel, waxay iga dhigtaa guduud ka dhig. Z keliya. hal xarafna waan calaamadsan karaa oo waxaan rabo ayaan ka bedeli karaa. dhammaantoodna waa calaamadsan karaa oo waxaan rabo ayaan ka bedeli karaa. word erey ahaana waa calaamadsan karaa oo qaabkaan rabo ayaan uga bedeli karaa. marka ciwaankii qaybtan ayaan ka dhigay oo saasaan ka dhigay tijaabo Microsoft Word document ama tijaabo inaga saar, tijaabada ka saar Microsoft Word document ayaan dhahay. qaabka uga saaraysidna undo aan dhaho horta qaabka aad u tirtirayso qaabka u tirayso waxa weeye inta aad rabto inaad doorato ayaa calaamada tan delete tan bigdhaysa ayaad u dhaxaysiinaysaa. hadaad ka soo qaad waxaan rabaa inaan tijaabo iska tiraan rabaa, qaabkan u tiri karaa inaan saa u highlight geliyo u tiri karaa, iyo inaan falaarta tan big leh labada tan word ama labada tan erey dhexdooda markaan taabto aan click ku siiyo inta ka dambaysa oo xagga ka xigta baa tirmaysa. markaan keyboardka taabto qaybta backspace-ka ama delete aan taabto waxaa tirmaya inta dambe oo delete big leh ka dambaysa, inta ka horeysana ma iga tirmayso. waxaan kaloo ku tiri karaa haddaan undo dhaho dib u soo celiyo, waxaan kaloo ku tiri karaa inaan highlight saaro kabacdina backspace dhaho, hal mar buu tirmayaan. marka intaan xaraf u tiri lahaa waxaa ii roon inaan highlight saaro hal mar aan tiro, backspace dhaho ama delete taabto. haddaan rabo marka inaan soo celiyo qoraalkaygii aan soo celiyo oo aan iga tirmay ama si khaldan oo iga tirmay aan rabo inaan soo celiyo, laba qaab baan ku soo celin karaa. anoo quick access tool-ka taga oo falaartan xagga ujeeda bidix ujeeda oo ay ku qoran tahay, markaan dul tago ay ku qoran tahay undo tabid aan tago waxay soo noqonaya tijaabo, qoraalkii aan tiray baa ii soo noqonaya. waa kan waa markaan highlight saaray oo aan hal mar wada tiray. haddaan xaraf u tirayna xarafkii aan tiray xaraf ayay usoo noqonayaan, marka xaraf ayay usoo noqonayaan. haddaan hal mar wada tirana hal mar intii erey aan tiray haddaan geligiisa dhan aan documentiga dhan wada tiro 100 page hadduu ahaa aan 100kii page hal mar wada tiro hal mar ayuu iisoo wada noqonayaan. undo aan dhaho hal mar ayuu 100kii page ba iisoo wada noqonayaan. marka inta qaab oo tidhay ayuu kugu soo noqonaya. marka waxaan rabaa haddana shortcut ahaan baan haddana u tijaabinaynaa control z ama z, control z markaad taabto waa ii soo noqday, control z markaad taabto waa ii soo noqday. mid walbaba waxaan ka bedelay ayaa dib usoo noqonaya. haddii aan rabo marka inaan dib wixii aan iska tiray oo kale ama hadda control c waa soo ceshtay sooma, tijaabo waa soo ceshtay, waxaan rabaa inaan celiyo meeshaan tiri lahaa backspace dhihi lahaa amaba isagoo saay ah aan dooran lahaa oo saa intaa u doorto backspace aan dhihi lahaa aan dib u noqon lahaa. marka meeshaan saa samayn lahaa waxaan dhahayaa control y, shaqadii aan daga qabtay dib iigu celi weeye. waxaan tiray dib u tir, tanna waxa weye waxaan tiray dib iigu soo celi weeye undo-du, waxaan tiray dib iigu soo celi. tanna waxa weeye wixii aan soo celiyay haddii aan sameeyey dib iigu celi, haddaan wax tiray wixii tir, haddaan wax qoray wixii qor weeye. waa undo iyo redo, waa ma samayn iyo waan sameeyey, dib u samay iyo dib u soo celi weeye la mid tahay. shortcut-koodana waxa weeye control plus z oo ah undo iyo control plus y. basta macnaa ma taabanaysid, lagu daray wey, la taabo weeye, ma aha inaad control la taabanaysid plus taabanaysid z taabanaysid ma aha, waa lagu daray weye, tusaale ahaan weye. waxay la mid tahay marka waxaa dhahaysaa redo weye, tanna waa undo iyo redo, waxaan sameeyey dib iigu celi iyo waxaan sameeyey dib iigu celi. marka qaabkan ayaa farta looga bedelayaa. haddaan rabo marka qoraalkan waxaan kasoo bedelay kalaradii saan usoo bedelnay waa aragnay, saan usoo bedelnay midabka waa aragnay, saan farta kalarkeeda usoo bedelnay waa aragnay, ayraahda cabirkeeda usoo bedelnay waynu aragnay, sidaynu noocyad badan uga dhigana waynu aragnay, sida farta nooceeda iskaga bedelno waynu aragnay, sida kalarka looga bedesho waynu aragnay, sida looga bedelo backgroundka waynu aragnay. haddaba waxay noo dhiman marka sidii paragraph ahaan loo isticmaali lahaa, dhexda looga dhigi lahaa, gees looga dhigi lahaa amaba loo simi lahaa. marka waxaan rabaa inaan farta tan baan rabaa inaan koobiyo, dib iigu celi, tanna dib u celi, ii yareey. waxaan rabaa marka inaan size ka yareeyo halkaa marka ii joogo, iyadaan rabaa inaan badsado aan koobisto baan rabaa. new line saan u tago enter baan dhahayaa, kabacdina
control v baan dhahayaa new line control v new line mar walba ii joogaa marka oo ankarka meesha hoose ii jooga control v macnaheedu waxa weeye waxa aan koobiyey ii paste gare ii tus ii soo muuji control z na waxa weeye copy amaba right click baa dhahaysaa copy baa dhahaysaa kabacdina right click baa dhahaysaa paste baa dhahaysaa waa kan waxa aan koobistay buu ii soo paste gareynayaa ii tusaya dib labaad ii badinaya camal waa badin control copy waa badin copygu iyo pastigu macnaha waa ii badin weeye marka waxaan rabaa hadda waa siman tahay qoraalkan waxaan rabaa dhinaca kan inaan geeyo marka waxaan rabaa haddaan wada doorto dhinaca midigtu ka bilaabanaya waxaan rabaa dhexda inaan dhaho ii gee halkaa dhexdaaba hadda ii tegey haddaan dhaho geeskan kasoo bilow geeskaanu kasoo bilaabaya haddaan dhaho marka inaan ii sintaan rabaa justify aan dhaho waa ii simayaa fartu waa ii sinaanaysaa dhinacaan waa ka sinaanaysaa dhinacaan waa ka sinaanaysaa xarf haddii aan badiyo wuu ku darayaa hadda saas ula ekaanayaa mar walbaba ma dhaafayo cabirkaa ma dhaafaysa ujeedi f halkaa cabir ma dhaafayo fartii aan uwada sinaanay sida badanaa waxaa loo isticmaalaa buugta ama documentiska markaad samaynayso ayaa badanaa loo isticmaalaa markaa buug daabacayso ama qorayso waxaa ka dhigaysaa qoraal labada dhinacba ka siman baa ka dhigaysaa haddaan rabaa marka inaan u sameeyo nambaro kasoo qaad waxaan rabaa number 1 number 2 number 3 inaan u sameeyo waxaan tegayaa qaybtaan ay ku qoran tahay bulletka noocaan raba ayaa ka dooranaya haddaan rabo dhammaantood inaan wada geliyo oo wada dooranayo waxaan leeyahay intaasoo line haddaan saan u wada doorto iyo haddaan saan u doortoba waa isku mid waan wada buuxin intaan line aan doortay waan leeyahay waxaa ii gelisaa calaamadda ii geli dhibicda waa ii geliyey haddaan rabo inaan iska bedelo wareegga ii geli haddaan rabo inaan iska bedelo nooca iga dhig haddaan rabo marka inaan iska bedelo qoraal inaan ka dhigto lambaro lambar 1 2 3 6 ku xigaan iga dhig haddaan marka tan iga tir haddaan enter dhaho 7 ayuu dhahayaa marka wax ku qorqoro enter sii dhaho 8 wax ku qorqoro enter sii dhaho 9 aan wax ku qorqoro enter sii dhaho 10 saa marka iskaga aan uga joojiyo waxay noqonaysaa waxba ku qori maayo line-kan 10ka waxba ku qori maayo waan tirayaa markaan tiro waa caadi enter waa dhahayaa marka waxba ii qormi maayaan haddii marka aan rabo marka inaan ka bedelo lambarka noocaas dhibicda lama rabo waxaan rabaa mida wareegaan leh qoys kale haddaan rabo waxaan ka bedelayaa romanka ayaan ka dhiganayaa oo taana ka dhiganayaa qaabkaasa marka looga bedelo haddaan rabo abc baan ka dhiganayaa waa kan abcdf noocaas haddaan rabo lambarada si u kala yaryar yihiin baan ka kala dhiganayaa u kala hooseeyaan sida a markaan taabto waxaa igu xigaya b iyo c iyo d ama waxaas oo dhan qaabkaasa marka looga kala bedelaa farta iyo qoraalka iyo kalarka iyo midabka iyo cabirka iyo size-ka loona soo geliyaa waxaan filayaa casharka in la fahmay wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu